dalkaasi ayaa qaaday xaalado baaritaan oo lagu qiyaasay 10,000 tiradaasi oo la mid ah tii ay fulisay dalka Jabuuti. dowladda Jabuuti ayaa qaaday xaalado lagu baarayo ku dhawaad 10,000 oo muwaadiniinta dalkaasi ka mid ah, iyadoo tirada guud ee dalkaasi lagu qiyaaso inay ka yartahay 1 milyan. waxa ay tallaabadaasi la mid tahay tii ay qaaday dalka la deriska ah ee Itoobiya oo tirada dadka lagu qiyaaso 100 milyan oo qof. Qeeladhaano badan oo dhinaca fidista caabuqa ah ayaa weli ka soconaya gudaha dalkaasi muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ay dowladda Jabuuti diiwaan gelisay kororka dadweynaha uu soo ridanayo xanuunka coronavirus. haddii aan u leexdo dhinaca iyo Jabuuti iyo sida ay u muuqato saldhigyadeeda militariga ee dalalka ajnabiga sida weyn u soo jiitay marka loo eego dalalka kale ee geeska Afrika, xiisaha sii kordhaya ee badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa soo jiitay dalalka quwadaha waaweyn ee Jabuuti, waxaana ay taasi kor u qaaday damaca dalalka gacanka oo dana gaara kale Jabuuti iyo guud ahaan gobolka. Jabuuti oo dhacda meel istiraatiiji ah ee geeska Afrika waxa ay soo jiidatay Mareykanka, Faransiiska iyo Shiinaha iyo saldhigyo badeed, iyagoo halkaasi ka samaystay saldhigyo dhinaca badda ah si ay farsamo ahaan u sii joogaan. dalka Jabuuti waxa uu martigeliyey ugu yaraan 5 saldhigyo militari, waxaana dheeri ka ah kuwo kale oo yaryar oo iyaguna la qorsheynayo mustaqbalka dhow in laga dhiso dalkaasi. waa dal yar oo leh muhiimad weyn oo ballaaran. tani markii uu xilka qabtay sanadkii 1999 madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhabaha u furay dhaqaalaha dalkaasi oo awalba aad u liitay qubadaha shisheeyaha oo raadinayay madaxweynaha oo sidoo kale wax ka bedelay iyadoo sidoo kalena wax laga bedelay dastuurka dalkaasi sanadkii 2010. dalka Jabuuti waa dal leh waxoogaa deganaansho ah oo ka yara degan marka loo eego dalalka la jaarka ah sida dalkeena Soomaaliya oo dhinaca koonfur bari ayuu ka xigaa, halka galbeedka iyo Itoobiya ay ka xigto, Eritrea oo xagga waqooyiga kaga taal, iyo Yemen oo ka xigta dhinaca waqooyi bari. badka waa 23,000 balaca dhulka oo isku wareeg ah iyo bulsho ka yar 1 milyan oo qof. Jabuuti waxay ku taalaa meel u dhow marinbiyoodka Baabalmandab oo ku xirta badda cas ilaa iyo gacanka cadmeed oo isku xirta Afrika iyo bariga dhexe, una sii furan Yurub oo loo maro kanaalka Suez ee dhinaca waqooyiga. badda cas ayaa leh danayn gaar ah marka loo eego suuqyada caalamka. waa halka ay marto wadada weyn ee gacanka saliidda. kanaalka Suez waa wadada ugu yar ee ganacsiga taga ilaa qaaradda Yurub, balse waxay ku taalaa meel u dhow dalal ay dagaalo ka jiraan sida Yemen iyo dalkeena Soomaaliya oo haatan soo kabanaya. ayay u arkaan wadamadaasi jid aad u halis badan. Jabuuti sidoo kale waxaa ka faa'iiday dalal aan lahayn deked sida Itoobiya oo 95% alaabteeda ganacsiga iyo shixnadaha kala soo degta dekeda Jabuuti. qarniyaal badan dalalka awoodda badan ayaa ku dagaalami jiray Jabuuti. xilligii halganka Afrika dabayaaqadkii qarnigii 19aad, Faransiiska oo gumaysan jiray Jabuuti, halka Britain ay isku dayeysay inay la wareegto gacan ku haynta xeebaha Jabuuti. markii ay Jabuuti madax banaanideeda ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1977, Faransiiska ayaa ciidamadiisa saldhigga uga dhigay halkaasi, iyadoo loo sameeyey maqaam difaac ah ilaa 5,000 oo ciidan. Jabuuti waxaa ku yaala saldhigyada ugu waaweyn ee Faransiiska uu ku leeyahay dibadaha, waxaana ay sidoo kale martigelisay saldhigyada Jarmalka iyo Isbaanishka. wixii ka dambeeyey bambaanooyinkii lagu qarxiyey safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam sanadkii 1998 iyo bambaanooyinkii lagu weeraray markabkii USS Cole
meel u dhow dalka Yemen sanadkii 2000 iyo weerarkii 9 September iyo weerarkii bishii September 2001 lagu qaaday Washington waxay bilowday inay bixiso lagu qaaday Mareykanka. Washington waxay bilowday inay bixiso $63 milyan si ay u hesho saldhig ay u isticmaasho ciidamadeeda badda iyadoo isticmaalaysa dekedaha iyo garoomada magaalada Djibouti. Saldhigga Lemoniq ayaa ah saldhigga kaliya ee uu Mareykanku ku leeyahay qaaradweynta Afrika oo ay joogaan ilaa 4,000 oo askari. waxaa sidoo kale jooga militariga Britain. madaxweynaha Mareykanka ee xilligan Donald Trump oo ka cabsi qabay fiditaanka Shiinaha ee qaaradda Afrika ee 20 sano ee soo dhaafay ayaa misana Shiinaha waxa uu si firfircoon ganacsiga dhinaca maalgashiga iyo gargaarka intaba la gashay qaaradda Afrika tani markii uu Shiinuhu bilaabay inuu ka hortago burcadbadeeda gacanka cadmeed sanadkii 2009 xukuumadda Beijing waxa ay soo daabushay ciidamadeeda badda taasi oo u gogol xaartay in saldhiggii ugu horeeyay sanadkii 2017 ay ka furato Djibouti. waxay ku bixisaa $20 milyan sanadkiiba joogitaanka saldhiggaasi. wadamada Talyaaniga, Japan, Sacuudi Carabiya, Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhammaantood ka mid ah dalalka ay soo jiidatay inay saldhig ku yeeshaan dalkaasi Djibouti. ilaa iyo haatan dhulka Djibouti ayaa ah goob ganacsi ahaan ay dalalka caalamiga ah ee wadamada dunidu ay si weyn u isticmaalaan, waxaana ay u muuqataa in si weyn loogu kala qaybsan yahay lacagaha faraha badan ee caddaanka ah ee ka soo gala, iyadoo kaabayaasha iyo fursadaha xagga dhaqaalaha ee dalka Djibouti oo ah dal aan inta badan lahayn wax soo saar dhaqaale ay misana macaash badan ay ka soo gasho. joogitaanka saldhigyada militariga iyadoo aysan ahayn wax si weyn loola yaabo ayaa dalkaasi waxa uu weli baadigoobayaa inuu sii fidiyo habka uu soo jiidanayo dalal kale sida awoodaha Ruushka, Turkiga, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Hindiya, xilli dalkaasi oo sidoo kale ka baaraandegayo in caqabado ay la yimaadaan sidii loo ilaalin lahaa danaha iska hor imaan kara ee dalalka aan isjeclayn, iyadoo dalkaasi oo markasta uu hubin ku sameeyo sidii nabad joogto ah ay uga dhex dhalan lahayd kuwa iska soo horjeeda markay saldhigyadoodu ku leeyihiin gudaha hal meel oo ah dalka Djibouti.